Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa ku soo waramaya in caawa fiidkii suuqa labaad ee ugu weyn ee Soomaaliya, Suuq Bacaad, uu ka kacay dab aad u xooggan oo halakeeyay goobo ganacsi oo fara badan. Sida wararku ay tilmaamayaan, dabka ayaa sababay khasaare isugu jira mid hantiyadeed iyo dhimashada laba ruux oo waxyeello xooggan u geystay goobihii ganacsiga ahaa ee ku yaalay suuqa weyn ee Suuq Bacaad. Maamulka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa ku howlan sidii wax looga qaban lahaa dabka ku sii fidaya goobaha ganacsi ee ku yaala Suuq Bacaad, waxaana wararku ay tilmaamayaan in la isugu geeyay dab-damisyo aad u fara badan kuwa oo looga hortagayo fididda dabka. Goobjoogayaal ayaa ku soo waramaya in dabka uu khasaare xooggan u geystay goobo ganacsi oo ku yaalay suuqa, waxaana ku basbeelay goobo ganacsi iyo hanti fara badan, iyadoo sidoo kale ay waxyeello ka soo gaartay dadkii qaar ka mid ahaa ku howlanaa daminta oo ay ku jireen ganacsatada suuqa. Wararku waxa ay sidoo kale tilmaamayaan in gabar yar oo carruur ahayd oo ka ag dhoweyd halka dabka uu ka kacay ee Suuq Bacaad ay ku dhimatay, sidoo kalena qof kale uu ku dhintay. Tiro intaa ka badanna waxaa la soo warinayaa in ay ku dhaawacmeen. Inkastoo maamulka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ay ku howlan yihiin sidii loo damin lahaa dabka ka kacay Suuq Bacaad, haddana waxaa soo laalaabanaya dababka khasaaraha xooggan u geysanaya goobaha ganacsi ee ku yaala geyiga Soomaaliya. Inkastoo aysan jirin cid si gaar ah loogu tuhmi karo in dabka ay ka dambeysay, lama oga dabka ka kacay Suuq Bacaad waxa uu salka ku hayay iyo halka uu ka kacay, waxaase wararku ay tilmaamayaan in goob ganacsi dab koronto ka dhashay aawadeed uu halkaa u sababay dab khasaare xooggan u geystay Suuq Bacaad.